waxaan maanta halkan ku daahfuraynaa qaybinta raashinka ay iska kaashadeen boqortooyada Sacuudiga iyo hay'adda Nadfor guud ahaan gobolka Saaxil waxaan maanta ka daahfuraynaa 1356 qoys raashinkood oo loo qaybinayo 8 degmo ay ka gooban yahay gobolka Saaxil maanta waxa aynu ka bilownay degmada Laasdacawo oo 140 qoys ah iyo degmada Madheero aan ku xigsiinayno oo iyaduna 200 qoys ah sidoo kalena waxa 200 qoys oo degmada Sheekha marka maanta iyo barito la soconayaan 8 degmo baan gaarsiinaa hadii la hayraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim ma taqaynaa dawladda qaranka Soomaaliland raashinka soo bixisay boqortooyada Sacuudiga lagu qaybiyay degmada anigu waxaan tagaa degmada Laasdacawo anigu taagada cilaamood wal bixiyay 140 qoys waan Ali Aadan Maxamed baan ahay waxaan ka socday tuulada dhaayeen Bureeqa halkan waxaan ku gudoontay 40 qoys raashinkood waxaan u mahad celinayaa Ilaahay marka hore marka labaadna dawladda Soomaaliland iyo malku Salmaan oo deeqdan noo keenay Ilaahay baa horta marka hore mahad leh marka labaad orada iyo hadii maayo suulinta soo dirtay inta yeelada darsiimada Ilaahay baa mahad leh ayaan u mahad celinaynaa Soomaal garan waanu ka gudoomanay hadii ay noo keeneen 60 qoys in kastoy ugu yara darakoonta dheeraadka in baa ku jiray jirta dheeraade ka gudoomanay Ilaahay baana mahad leh waxaan gudoontay 60 qoys anagoo gudoomiyihii laafiileed 60 qoys ayay orada soo dhintayna Ilaahay sijaada ka siiyo waana ugu mahadnaqaynaa Allahna mahad leh maanta waxaanu daahfurnay qaybintii raashinkii ay iska kaashanayeen boqor Salmaan iyo hay'adda diyaargarowga afooyinka kaydka raashinka qaranka hadda waxaan ku sugannahay degmada Mandheera waxaana la jooga xogayihii degmada waxaan ku wareejinaynaa raashin dhan 200 qoys raashinkood oo u qaybin doono 3 tuulo oo kala ah Xamaas Lafaruug iyo Macaaneeya marka waxaan xogayaha ayaan ku wareejinayaa taawun degmada Mandheera raashinkaas nuugu waan kala wareegnay 200 raashina 3 magaalo aan u qaybino Xamaas iyo Lafaruug iyo Macaaneeya 200 raashina aan kala wareegnay annagoo 3 tuulo oo ah Xamaas Abdaal iyo Xamaas Lafaruug iyo Macaaneeya aan hay'adda raashinka kaydka ayaan kala wareegnay raashinkaas oo 100 raashina 3 magaalo loo qaybinayo halkan waxaan kula wareegaynaa 7 qoys oo raashin oo kaydka raashinka lagu wareejinay 200 oo reer ayaa degmada Madheero la wareegtay Macaaneeya Lafaruug Xamaas waa 200 raashina waan kala wareegnay alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican buu noo soo gaaray shaqaaluhu si fiican bay nagu shaqeyn xogahiyo garab taagan uu joogay isaga nooga wareejiyay wali raashin soo gaarsiimay jiraan oo deeqdan oo kala kal hore dar hore tan oo kala mar baan la siiyay wax masuqbaas bay xasibi ma dhacan soo ma dhacan laakiin dadka badan oo barba qada marka maxaad ka codsanaysaan xukuumadda iyo hay'adaha waxaan hooyay iyadoo Ilaahay baa loogu mahadiyaa hore noo soo gaadhay alxamdulillah waxaan soo jecelnahay in loo soo kordhiyo waan badanahay dadkana abaaraha soo maray hooy abaaraha baan baa soo maray xoolaha ka meebsan waxba ugu meebcaanin waxaan jecelnahay in loo soo kordhiyo deeqdana loogu soo deeqay intii noo keentayna waa Ilaahay ka siisay mariyo in loo soo kordhiyo baan jecelnahay marka dad labaad ka badan baa qatano halkan taagan oo magaalada صح beero weyn naga xumaadeen xitaa beer ma lihin beero weyn naga xumaadeen xooluhu imika waxa ka yar leebsanaya xooluhu aad baan naga xumaadeen way abaarta mid ku muddo dheeraatay roobabkii deegaanadeen iyo roobabkii imika si fiican bay noo heleen si wanaagsan bay noo heleen Ilaahay baan ugu mahadinaynaa laakiin waan jecelnahay in loo soo kordhiyo deeqda waan jecelnahay السلام عليكم. أي وما سنتي.